سريع هذا هاجتي إنتنا برنامج كنا بذكرين وحن كفرنا أيضا قرآن الكريم كا يو ولي بالبكر مدود وعاو هكذا مرتين وبيا هاي شيخين على وضنا قانون الشيخ سعيد محمد فرح زود وسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى مهدي سكان مهدينا حاجي عبدي حسين وكسور وينيا هذا لندن وكسور وين كان مبحبي هاي إلهي سبحانه وتعالى بركة أمريكي سعد عليه ما شاء الله ما شاء الله ونحسن حاجي برنتي ما تيجوه رئيسة تيفيدا سكاركم ويانه برنتي مفرحسن على تريسة وأنا شاء الله سبحانه وتعالى إسكايت الصور قفنا بدو كشقيني وتاريخ يعني هذه البلارن يعني لها وهذا إلهي سبحانه وتعالى إذا نقولمه meelaha suuqyada runtii markaan marayo dad badan baa yidhaahda waxoogay u yar bartay xagga ducada u kaalay bal noo duceeyo waxaa yidhaahda qolooyina maanta kelimada waxaa ku yidhi xaajigii ducada oo dhan watay baan kasoo ducaysanaya rabbi alcaalamiin alxamdulilah rabbil caalamiin intaa waxaa i dheer allah mustacaan waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu qof banaadinka ogaado adduunyada tan wuxuu inoo abuuray in ilaahay jala wacala la caabudo in bani aadamka adduunyadani in yar baa lagu noolaanayaa ay aakhiradu noqoto yani meesha qofka bani aadamki inuu u shaqaysta ay tahay ay beer noqoto aakhiradu qofka bani aadamki uu ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa khayr ka rajaynayo waqtigu waa yaryahay ayaamuhu waa maalmo yar qof walbana maalin baa sugaysa lala xisaabtami doono waxalaali wixii u shaqaystay oo dhan la weydiin doono waxaa markaa dardaaran naftaydii idinka baan idin gudbinayaa in maalintaa loo diyaar garoobo in la ogaado waqtigan aynu adduunyada tan ku noolahay waa waqti yar nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ummadaydu buu yidhi da-doodu waa 60 iyo 70 inta udhexaysa in yar baana dhaafta sida xaajigu maasha allah iyo in yaroo lamida ayaa ilaahay subxaana watacaala cimrigooda ugu dheereeyey ilahay waxaa ka baraya siduu nabigu sheegay dadka waxaa ugu khayr badan qofka cimrigiisu dheeraado camalkiisa wanaagsanna uu farabato marka kuwa ilahay subxana wataala xaajiga ku daro ayaa ilahay subxana wataala uga baryayaa inaguna waktigan aynu ka faa'iidaysano in yar baa la nool yahay in aakhira loo shaqaysto oo goolkeena uu noqdo in ilaahay jala wacala la raali geliyo aakhiradana loo shaqaysto dhexdana loo xidho oo qofka banaadinka adduunyadiisan uu habaysto isagoon adduunyadii iyo wanaageedii iyo wixii xalaasha ahaa ka tegayn haddana uu qofka banaadinka adduunyada isku dabarito isku dabaridkaasina uu noqdo miduu aakhiro ilaahay kaga rajaynayo jannatu firdows alaclaa si qofku taa u helo waa inuu waqtigiisa ka faa'iidaysto waa inuu qofka banaadinka caruurtiisa iyo reerkiisa role model yani wanaagsan u saambulo u noqdo waa inuu mar walba isku dayo raaligelinta ilaahay subxaanahu watacaala inay noqoto waxa ugu horreeya qofka banaadinka uu ku dhaqaaqayo taas haddaynu la nimaadno awlaadda ilahay inoo barakaynaya arsaaqda ilaahay subxana watacaala inoo furaya depression iyo stress iyo diiqad aada iyo aada u fara badan oo dad badan haysata ayaa ilaahay subxaana watacaala qalbigooda iyo caqligooda iyo yani naftooda uu ka saarayaa waxay noqonayaa dadku dad mar walba qoslaya oo iska habiya waayo adduunyada tanna wax wanaagsan buu shaqaystay aakhirana isagoo ilaahay subxaana watacaala raxmadiisa rajaynaya ayuu ogyahay inuu waxdee aakhira sii dhigtay raxmadda ilahina subxaana watacaala dadkao dham ay ku hoos jiraan ilahay subxana watacala waxaan ka baryaynaa kulankeena kula khayr qabo oo ka dhigo in ilaahay subxana watacala dhammaanteen bayna waafajiyo xaajigan inoo yimidna ilaahay subxana watacala inuu cumrigiisa dheereeyo caafimaadkiisana badiyo آخرنا إلهي سبحانه وتعالى لما تبقى جنة الفردوس علينا نوكل مية أي الله سبحانه وتعالى كبريا وصلى الله وسلم على سيدنا هذه أبو ما صف الشيخ سعيد إلهي كاو مريض إننا جماعتين بحرها شاسية إما كوحن ويريا آسيا فرح موسى وآخ قدومي كوفيجين كأورك قبلها جارودي وعاوة آخ قبلها يسوي صوتي في الجاع الشدة ورفض بدن له وندوني بالهدين أكيد ما كل مدة تتناقض الرحمن الرحيم أوجن حلبان عبدي كريم حسين يوسف حاج عبدي مرتدى شرف صلاة مدنية مروين با حنقول سلام يا سلامة إسلامك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كوكيلة قبلها سويت بردي عشرة وحان الآن يا وهم بليين يا سيدا ونفسن الشرف له أنا جلست وقايم كشين وأنا الشرف بينات هاي عدانو نهاي قبلها أورك كارودي إن لوجين ووج سومالي لاند أن كسر دوينو لندن أنا عشان كسوقايم كشان أما أنا قلنا سواء بلو شرف وين بينات هاي وحيلير تشيني يا هبين وناسن يا حشو وناسن يا وو حاجي عبدي أن كسر دوينو لندن. والله سنت يا آسيا. أنا يا أورك جارودي كل أبا لقوة درسين هيك قبلها معها عشان كلية وحي كروسمي دكتور كوين يكوي لما قاعد سلاحي أو إما كان ماضي أو أي حتى يكون قلبي هذا نوع يبقى معني. وحنا يري مكانه هذا الموجة أو كم قاعد هذا الإنجليز. وحن يا آد وسلام يا قبلها سكسود بردي حفلة عاوة إلى شغله إلا وحصها يوم حاجي عنك ها إلا وذي غاني قبلها سو أنك رجع أنك ديري إلا دراتي حاج ويموح المشغول كوه بلان الحفلة دنو كلا قبل نوانا نقبك waxay taasi tusaysaa inay habluhu mudan yihiin oo ragga ka karti badan yihiin istaahilna yihiin inay wadanka hogaamiyaan ee madaxweynaha isu soo taagaan inta markaan ka tago xaaji cabdi xuseen u malayn maayo in dadku isu sheegayo waxaa jacaana kolkii hore Soomaaliya dhexdeedu bacaan ku ahaa imaka laakiin international level caadi u noqday oo caan ku wada noqdo lagu ogaado halkan baarlamaanka Ingiriiska hore uu yimi halkan isagoo la socda daahriyaale uu ka hadlay waa laga turjumay aad baa loogu sacabeeyay markii uu khudbada ka jeediyay taariikhdii Ingiriisku dhulkeena ku lahaan jiray ka hadlay Mareykanku wafdi uu soo diray oo Somaliland yimi oo habla markaa u badnaa wuxuu yiri Mareykanku annaka deewu na sharfay kol haduu habla noo soo diray hadii qosol bayda saddex bay ahaayeen baarlamaanka ka tirsan iyo state departmentka aad bay u qosleen dhowr caqararood bay qosleen oo yaabay laakiin day guursan mayna ku haji markaa intiina meesha joogto qof aynu sheegayno in oranayno حاج عبد تاريخ ديسو ده ملاين مايو وقف لو بالبلارين يا أي شفتو لكن هبلها كشرف في ما أنت يعني ويا يران هالكن أيها التشرف بدن مدن يسوونه إما كواحد ويان تاريخ وين أو لقى قرايو أيوه هيا وحنا الديار لو يهي تاريخ دي إما كان لقى قرا وقت كان حاضر كين شغله أو لقى هيبه رك إما كان مقالة لبن شوقه أيها دور أيها إن يمادان وحاجة maalin baka qoraan waxa uu taariikhiyo si future-ka loogaga sheekeeyo generationada dambe ee manhaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidaa aada sheegay waxaynu ogsoonayay runtii guurtida iyo odayadeena يعني حاجي عبد الكريم قيمها وسوماليلاند كلي هاي نبت قليلة iyo runtii waxyaalaha ku faarayno ee walaaleyna Soomaaliyeed kaga duwanahay waxa weey waa odayada uu ka mid yahay xaajigu Sheekh Ibrahim Allah naxariiste markaa qiimaha iyo qadarinta leeyihiin dadkeena wanaagsan inaan mar walba siino ayaa muhiima taariikhda wanaagsan in aynu ubadkeena iyadana uga tagno sidaa la sheegay rag walaalaheena insha Allah haddii alla yidhaahdo halkan joogo ay wixii ay ka qori karayaan haddii alla yidhaahdo dadka runtii reer Somaliland waxa weeye dad wadaniyad iyo wadajir iyo wanaagga jecel khaasatan hablaha sidaa aada sheegay
وحوي قيمة وين بي ومتريس وما أنا نقول فديان أنت سيكون سوق كوبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ugu yeerayaa nin abwaana qoraaya oo ذكرنا محمد باشا حاج حسن oo aan filayo in uu isu diyaarinayo inuu xaaji cabdikariina uu buug taariikhiya uu ka reebo haddii Allah awood loo ogolaado. maxamed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاج عبدالكريم حسين يوسف iyo madashan bilan ee hablaha gaaroodi marti sharafta kala duwan ee kasoo qayb gashay waa isir ka mid ah wadajirkeena iyo isjilbeebinteena aanu dhaqankii hidaha u leenahay waaye is-wareegii waa maxay baa la yidho waa ixtiraam baa la yidhi ixtiraam حق دور يحشمت تيبان عاو هذا كم وقتها هبلو هذه يدي ومحسين قوبها قفينت مركز لقى فالونا يو علىها الصومالية اللي يسبر بردقة يو حسلوني ده ينبدليه ده الصومالي لا لقى على الوضوء يرينا عكله علاته يتقالد الصومالية dadka chief iyo jooga u diiday ee la isweydiiyo maxay labada ku kala duwan yihiin waa Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxaa lagu jawaabay ama jawaabaha ugu caqli galsan ee celiya kamid ah Soomaaliland waxa ay dheer tahay oo ay haysataa xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf oo looga gol leeyahay odayaal dhaqameed ruuq cadaaya oo yaqaana dareenka dadkooda maqalka dadkooduna uu u nugul yahay doorka odayaynta ee heerka xalinta wixii markaasi ismaandhaaf iyo isaseeg dhex yimaada bulshada gaar ahaan beelaha qabliga taasi waa dhab marag badoona laga soo bilaabo halgankii hubaysnaa ee ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ilaa iyo maanta aynu joogno waxaa doorka xalinta khilaafaadka beelaha iyo weliba garabyada siyaasadeed kaalin milgale oo biyo kama dhibcaana ka qaata oo ku leh odayaasheena guurtida ah ee uu xaaji Cabdikariim hormuudka u yahay uguna waayeysan yahay xaaji Cabdikariim waxa aynu ku masaali karnaa dhinaca kale rug kutubeed ama library waxaan afka qalaad lagu yidhaa oo weliba laba qarni jira 200 oo sanadood taariikhdood dhur iyo dhaqanba war iyo wacaal dhacdooyinkii xiriirsanaa ee dalkeena iyo dadkeena ayuu qaarna u soo joogay qaarna markaasi la kulmay oo ka sheeko qaatay odayaashii la noolaa waayahaasi hore rugcadaanimadiisa dhaqan ruugnimadiisa awoodda xiskiisa iyo xusuus kaydintiisa tala ruugnimadiisa sanadtalisnimadiisa dad iyo degaan aqoonkiisa iyo sida uu alle ugu barakeeyey cimriga caafimaadka iyo caqliguba waxa ay markaasi ka tibaax bixinayaan qiimaha iyo qalanbaawnimada qofnimadiisa iyo baahida hoosta ka xariiqaysa in la weeleeyo oo laga reebo markaasi duuga mugga weyn leh ee taariikheed ee dhaqan leh ee hidde leh af leh suugaan leh habnololeedyo ummadeed oo taxane kale u kala dambeeyey leh siyaasad leh xilli gumaysi shisheeye la iska kicinaya lahaa halgana xornimo doon oo shisheeye lala gelaya lahaa dowlado rayada lahaa tumilatariya iyo kacaanimo iyo kilitasnimo lahaa isdiidooyin kacdoonno siyaasadeed iyo markaasi duruufo halgano gudeed iyo dagaalo sokeeye iyo inta maanta aynu ognahay ee waayaheena leh xaajiga waa isir qofeed oo markaasi haya tagtadaas hore ee boqolaalkaas sanadood markaasi ku siman godolba halkii iyo sidii markaasi aynu kusoo sugnayn dal iyo dadba iyo joogtadeena maanta waana hubaal in xaaji Cabdiraxmaan u durusi karo oo tilmaan ka bixin karo timaadadeena bixito
sidaas daraaddeed aniga oo ka mid ah inta markaasi ku taamaysay in markaasi ay helaan fursaddii xaajiga lagula kulmi lahaa ee maskaxdiisa lagu maari lahaa waxa aan caawa markaasi halkan ka caddaynayaa oo markaasi aan ka mid ahay inta gaawaha u curaysa ee u cilaadaysa sidii ay uga jibo keeni lahaayeen in qoraalka iyo taariikhda xaajiga mahadhooyinkiisa iyo taariikhdaasi baaxadda leh xuseen cabdikariim xuseen la weeleeyo oo markaasi looga dhigto iftiin lagu raad guro laguna raad raaco nolosha ummadeenna dal iyo dadba wixii qoran baa quruuma dhaxlee muxuu hadal qiimo leeyahay cabdi deeqsi warfaa ayuu ahaa intayna halkan joogta iyo intaynaga maqanba waxaa inagu waajibah inaynu ka jibo keenno oo u diyaargarowno qoridda iyo markaasi soo bandhigidda taariikhdaasi mugale ee xaaji cabdiraxmaan oo haddaynan maanta weelayn inagu ah dhammideen khasaare iyo dhegxumo asalaamu calaykum waraxmatullahi kelmaddan aynu caawa isugu nimid ee ku saabsan awowgeen dhammaantiin awow inoo wada yahay xaaji cabdikariim xuseen yuusuf oo dadka badankooda ay u yaqaanaan xaaji cabdiwaraabe kelmad xanan maaha oo isagaa fasaxay oo wuxuu yihi waa aflagaada bui lakin cidna xaal kama weydiiya bui xaaji cabdikariim markaa kala dul fasaxay marka ka weecan maayo oo kelmad lagu yaqaano inkastoo qoladan reer koonfurku ay ka rawaanay oy cabdiruwa bay yidhahdaan xaaji cabdi xuseen yuusuf aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan noolahay oo aan agtiisa taagnahay oo halkan inala fadhiyo oo insha allah haddaan ka nolol dambeeyo aan carruurteyda iyo carruurtay dhalaan uga sheekayn doono inaan odaygii nabadda maaragtay geyiga soomaaliyeed qaybo badan oo kamid ah caan ku ahaa inaan habeenadiisa kamida la qaato oon ag taagnaa sharaf bay ii tahay inaan maaragta ka sheekayn doono waana janis in yaroo nasiib luna ay hesho ilaahay baan taa uga mahadnaqayaa waxaan ilaahay uga mahadnaqayaa in cimrigiisu ilaahay soo gaarsiiyey maanta 107 sano mise 108 sano buu imika jiraa 108 sanana waxay ka fagarayeen waxay waaya Soomaalidu soo martay oo dhan dhib iyo dheef kay doonta ahaato hadday dagaalo lagu hoobtay tahay hadday abaaro tahay hadday isticmaalkii soo galistiisii tahay dagaaladii adduunka ka dhacay ugu waaweynaa kii koobaad uu joogay kii labaad uu joogay dagaalkii in Cabdillah Xasan lagu qaaday Ingiriiskii uuntiisu uu joogay Talyaani soo galkii uu joogay Talyaani kacii uu joogay Ingiriis kacii uu joogay maaragta Somaliland dagaaladii ka dhacay dhan uu joogay Somaliland dhalashadeedii uu joogay nabadeedii uu joogay macnihii wax la sheego oo soo abaarihii wadanka ka dhacay dadii dunyada lagu hoobtay badankooda magacyada kala duwan la baxay haariya hawaara hargacuna waxa doonto fi daba dheer magacyada doona loo bixiyay wixii Soomaalida waa soo maro dhan uu joogo dhamaantoodna qayb buu ka ahaayo mid kasta wax laga weydiiyo wax weyn oo aad fara badan ka sheegi karaya waana waxyaalaha u baahan dadka wax qora inay wax ka qoraan ma aha inuu xaaji cabdi oo kaliya nasiib u leeyahay inuu waayaha uu joogay ka sheekaynayo laakiin dadka wax qorana waxay nasiib u tahay inay qof noocaas oo kale oo taariikh 100 sano ka badan u soo joogayo waliba uu soo joogistiisu aanay ahayn mid uu back seat-ka waxaan la yiraahdo fadhiya ama kursiga dambe uu fadhiyay inuu dhammaanteed waayahaas oo dhan driving seat-ka fadhiyo aad iyo aad u ballaaran oo aanu cidna soo weydiinayn oo buugaanu ka soo akhriyay oo reference meel u doonanayn oo uu ka sheegayo isagoo macnihii wax amazing oo lala yaabo weeye marka dadka wax qoro maxamed baashaawi nagala joogana waxay u tahay chance weyn oo iyo fursad qaaliya bay u tahay inta haddaan kasoo gudbo arrinta la yaab kale ee nolosha xaaji cabdi qof kastaa dareemi karayo oo in badanna igu soo dhadhacdo waxa ka mid ah xaaji cabdi wuxuu joogay iyadoo geyiga Soomaaliyeed bir guuxdo oo baabuur la yiraahdo jooginba wuxuu joogay iyadoo magaalada Hargeysa daarimo aanay ka dhisnayn ee maanta wada garanaysaa oo hal daari aanay ka taagnayn maantana xaaji cabdi waxa laga soo qaaday airport Cairo baabuur lagu hagayo maaragtay satellite communication system marka labada xilib uu joogay iyadoo bir guuxdaaba joogin iyadoo baabuur satellite-ka lagu hagayo la wato ayuu labadaba soo gaaray oo inaan tilmaamayso marka waa amazing aad iyo aad loola yaabo
xaaji cabdi waa nin odaya oo nin oday beeleed ah siyaasadana uu soo galay siyaasaddu waa maareynta nolosha dadka weeyaan siyaasaddu wax kale ma aha nolosha dadka uu maareeyay xagga hagaagsan baan u maareeyay xaaji cabdi waxaa la iiga sheegay in shirkii boorame qolyo maraykan oo ka yimid safaaradda Addis Ababa uu ku yidhi dee xadaaradda reer galbeedku waxay noo sheegtay in inan yaroo 18 jir aanay reerkooda ka idan qaadanin waxay sheegayso iyo waxay samaynayso laakiin qaran dhan oo 5 milyan oo taladoodii gaadhay inaad tirahdeen ma tashan kartaa ayaa haddana iyaduna meesha taalla buuri marka labadaas saa isu waafajinaysaan idinkaan doonayna nooga sheekaysaan buu yidho laakiin kamay sheegin laakiin buug bay ka qoreen sidaa lay sheegay ay commentkiisaasna aada usoo xigteen hornin oday maalin wata iga sheegaan buuggaa ma arag laakiin dee waxa weeyaan waa arrin u baahan in lagu challenge garayo waska loo sheego in waxaan la yidhaha self determinationka in dadku xaq u leeyihiin inay go-aan ka gaadhaan waxay doonayaan ay sameeyaan qofku meeshuu ku gubtay mar inuu mar labaad haddana ku gubto haddana maroo iska gubo oo guryaha waa iska dumeen wax caqliga ku jira ma jiro marka waa arrin u baahan iyada qudheed in la noogarayo siyaasiyiinteennu ay luqadda casriga ee adduunyada maanta ay fahmayso ku sheegaan marka taasaan ku dhaafayaa arrinta labaad ee doonayaan bise aan intaan kaga baxayn xaaji cabdi hadalka u dhaafee mar kastoo in xaaji cabdi soo qaadno waxaynu ku soo qaadaynaa waxa weeyaan ku tilmaamayno associated ku yahay oo uu ku tilmaamaye ama ku sidkan yahay haddana af soomaaliga ku sheego waa nabad nabadduna waxay u baahan tahay dhalinteedu geesinimo dagaalku kali geesinimo uma baahna nabadduna geesinimo ay u baahan tahay nabaddu waxay u baahan tahay tolkaa iyo ilmaadeerada oo khaldan oo dagaal doonaya inaad tahdo maya dagaal ma doonayo ilmaadeernimadu intay dantii joogta Soomaali iyo dadka gobolada dega Soomaaliland oo dhan dagaal doonayo Cabdi Xaaji maya dagaal yihiin ginaas kala wax ku doonaa habeen dhawto waa ka sheekeynayay muu bedelin fikradiisa oo markuu dagaalka dhacay intaas oo dhan ka soo wareegtay muu oran halgamaabaan aaga sanamtii ana asaasay sidii waliha arko sheegay tuu maalintii la taagnaa buu hadana ka sheekeeyay nabadaan u taagnaa sanamta waxaan idhi joojiyo dagaal iyana wuxuu ku doonay kuwa kale oo ka dambeeyayna bareerihiisu ka dhibto warmee buu dagaal hala joojiyo in badan oo ku diiday maalintiina way u garawday waxaa jabsi walkiisii fadhiya haddana loo soo noqo oo la yidhaahdo hagaagsanaa qofkuna markay tahay inuu nabad dhaliyo noqdo ee jirar dambe ay ka sheekeeyaan wuxuu u baahan yahay geesinimo uu ugu badheedho wax kasta uu ugu badheedho u baahan yahay geesinimadaasna ilaahay waa siiyey maanta Nelson Mandela waxay adduunyada dhan uga sheekaynaysaa maaha geesi xabadeed waa geesi nabadeed wey waa Nelson Mandela Soomaaliyeed ciddii kastay wax qoraysaana halkaasay ka amba qaadaysaa waana wax runtii aad iyo aad loogu maaragtay faano sida ay runtu tahayna kulankan caawa isugu nimiye xaaji cabdi oo ay stage-ka soo fadhiisinay waxay muujinaysaa inaanu qiimeynayno dadka qiimaha leh dadka ummadda isku jabinayeen habeenna koob caanaa u soo biyayna inaynaan qiimeynayn oo aynaan front line-ka keenayn ayay muujinaysaa dadkeena kale wanaagga sameeye ka dambeeyana waxay madaxa ku haynayaan inay yara la qiimeyn doono dadka hortooda la keenayo meel kasta xigaan markaa xaaji cabdi waxaan leeyahay cimrigaaga ilaahay kugu barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala jannaha ku geeyo dee tilmaan iyo tusaalaatay haddaad nooshay iyo haddaad dhimataba waxaana rajaynayaa inaad nala joogto 10 sano dambe ha qaatee Soomaaliland oo la ictiraafay assalaamu calaykum ilowdaasna xaaji cabdi meeluu ka maqlay inaan ka sheegaan jeclaa assalaamu calaykum aad baad mahadsantahay maxamed haaruun iminkana waxaan u yeedhayaa injineer maxamed axmed balaya oo bal hadda isna kelmadiisa odhanaya awow xaaji cabdikariim waxaynu nasiib u yeelanay maanta waa 300 oo sannadood taariikha ayaa caawayna la joogta halkan waa awow xaaji cabdikariim waa 100 iyo uu nool yahay iyo 100 kale iyo 100 kale oo taariikha marka la qiyaaso waa 300 oo sannadood marka waxaan malinayaa in aad iyo aad u nasiib badanahay inaynu maanta halkan aynu inoo joogo uu halkan inoogu martiya waxaan anigu soo joogay baarlamaanka madaxweyne Riyaale iyo wafdigiisii oo baarlamaanka Ingiriisku
iyo dadkii kasoo qayb galay halkaasi su-aal ay weydiinayeen madaxdii somaliland oo madaxweyne ku jiro. su-aashu waxay ahayd la weydiiyey wadamada jaarka ah haddaad ictiraaf doonaysaan somaliland ay madaxweynihii iyo wasiiradii wadamada jaarka idinla ah siday isku tihin. wasiir baa u baxay oo jawaabay hadalla sheegay, wasiir kalaa jawaabay, xaaji cabdi baa dhegta loogu sheego loo turjumo la yidhi su-aashu waxa weeye wadamada jaarka ah say isku tihin uu ninkan ingiriisina weydiiyey. xaaji cabdi wuxuu yidhi horta marka hore intaanan ka jawaabin kuwa idinka jaarka aad tihiin markii ay islaynayseen aynu weliba hubka idinla qaadanay maanaan idin weydiin say isku tihin. kamid yahay meeshii oo dhan baa isla kacday markaa oo sacab la garaacay. markii dambena uu su-aashii ka jawaabay haddiise aanu soo noqdo qolada aanu walaalaha nahay wadda soomaaliya aanu walaala nahay qoladan kale saasaanu iska nahay oo sidii diblomaasiyadda ahayd su-aashii uga jawaabay. laakiin waxaa dadka ka yaabisay sida uu helay hadalka markiiba. marka hadalku dheeraan maayo. xaaji cabdi ilaahay haynoo nooleeyo. waa taariikh nool oo ilaahay nasiib inoo siiyey inaynu caawana laga faaidaysto. xaaji cabdi allah ku nool. waa mahadsantahay maxamed. iminka waxaanu yeedhayaa axmed sheekh cumar oo nin dhalinyaro ah oo haddana taariikhda aada ula socda oo doonaya bal haddaynu kelmad yidhahda isla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يا أمر وين aad baan anigu ugu faraxsanay inaan ka soo qayb galo casho sharaftan aynu u samaynay xaajigeena qaaliga ah xaaji cabdikariim xuseen. anigoo ka mid ah dhalinyarada UK waxaan u mahad celinayaa dumarka gaaroodi iyo dhammaanba dumarka Somaliland siday u sharfeen odaygii nacanka. odaygan anigu aad baan u jeclay. waa oday aan in badan taariikhdiisa dadka ka maqlo, welibana waxyaalo badan oo aanan anigu ka baran baa jira oo aan jeclay insha allah in bugaagna loogu soo qoro oon xitaa anagu dabagalno taariikhdiisii oo aanu magaranaysaa xifdino intayada maanta nool iyo kuwa berri dhalan doonaba inaanu insha allah xaajigeega iyo taariikhihii kasii horreeyeyba inaanu maxay hayday dadka uga sheekayno. marka adeer amba awel xaaji cabdiwaraabe aad baad u mahadsantay inaanu ku aragnay maanta adigoon nooga mid London. waan ku faraxsanay, waanu ku soo dhaweynaynaa anigoo ina macalin Aisha. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad baad umahadsantahay axmed. waa hagaag waxaan idiin hayaa nin abwaana ood aada wada garanaysaan. haddaan idiin xasuusiyo waxaa ku xasuusanaysaan waa Peter Beatle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرة كوبل السلام عليكم. حاجي عبد الكريم حسين هذه أهلا وسهلا. بان وحسين يان أكو وايو تاريخ ما نهي أنا قاعدين ولا بيننا كوينو وأنا سومالي بحاسيب بينو حتى ما نهي تاريخه وقربها ما حسن مسكين كهري مرها هذه أهلا وسهلا حسنا هي وحكيلك فرح حسنا هي حبلها الصومالي المدور من غاب يستها حبلها إذا كان في عن ساسي وحطها أي أفكي هويو قفكي أمودنا أي مركبة قرتين السنو ومن الله قبته أي مركبة قرتين هسا عجينة أنا قال لكم إذا هذا الحمد لله كان كو قبي عن السعودي وحلقات على الصومالية يا الصومالي بحي كل دويه بالي مركبة وحهر الله شيء عبد الكريم وكلا أيون هاي سنو حاجة يرجع lamida ama ku dhowdhow inkastoo isagu uga caansan yahay. markaa taa qaabkii loo sameeyey isagaa xusadana gabay ku habboon ayaan oan hore u celiyey baan idhi taarikhda xaaji cabdi oo iska socoto badbar hore iska tiriye bal isaga horta ka hordhe. markaa gabay geed socod balayaa wuxuu ka hadlayaa bini-aadamku waxay kala duwan yihin hogaanka geed socod balaya. bismillah halantaba gubtoo laga unkaa garasho weeyaane gargar loo sameeyo iyo haruub guudka laga saaro maskax godole baa laga dhaxlay oo godatay hawsha
كوكوستاي الكوكودينا كيف كسوق إيه بيع جوز هذا إيه بيع جلعني لو شيء دروها قطري هو يبغى يحس ده يقول لي أو جوزاش نمشي حتى أنا جبوا دي راهين قبل هو يرتكب أيه حتى يرتكب قال جوز ده إن باقراتي هدي قدر اللي حرام إنه يحكون ليش إن باقرتي قرت شيء كذا شيء إن باقراتي قولي إنه يستان أنا قلنا فوق إن باقوسي لا ما كنت تقول سوق قال كذا في سد تبع الحالي قديسة إن باقراتي قال يعني تغير كل إنه قول سي أو إيه قولي قدر يعني كان أقول حدي أو ترى قال كسوق هستي إن باقراتي كاحنا طبعا كان شاب بينا يصير باقوا هو قاطي أو قدر كسوق شيء باقراتي كون قاشو يقولك جيساري إن باقوا عمل سي أو ترى في جوجوسي باقراتي جيتيه هذه أول تروح جروك قاعد هذه لا قصده هو كلام فلان مرة جروك قاطع هو جروك لسه شو كان قصده هذي وهو كان جالس يقول إن باقراتي قاعد الله قلت علمت وإحنا قليل قلت أنا لو هقول كله قلت له تيجي هذيك أنا قلت لك أنا قلت قاطي كم يقول ودي واس لا تدري لكن قلت لي وقلت لي نفس الشيء هذا حلو يوم قبل سنة عسى يقدر تقرأ أي فليان مقلان قاهر عريان مركوا عريان هنا سواء لا تقول تاجر تويبي إلى هو كذا هذه أقول فرصتها waxaa kale noogu martiyeen media badan waxaa halkaas soo fadhida saxafiyadda weyn ee Amal Kayse oo hogaaminaysa TV-ga Royal TV iyo waliba Somali Channel oo caawa isku duuban wada socda waxaa kaloo jooga Home Cable TV oo wakiil nooga yahay ama ay iskaashi caawa wada haystaan Israel Studio oo uu yahay saldhigoodu xaafadda Sohol waxaa kaloo jooga suxufi madax bannaan oo wada garanaysaan saxaafadana aad ku aragtaan website badan inuu aad u soo geliyo waa Xamse Axmed Salaam oo wada taqaanaan dhammaantiinba aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadkiina sharafka le caawa sharaftan ka soo qayb gasheen dhammaantiin iminka waxaan mikrofoonka inoogu dhiibayaa aabaheen awowgeen xaaji cabdikariin xuseen xaaji cabdiwaraabe allahuma salli calaa maxamed awalka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xafladda hablaha soo uu abaabulay iyo inta ka soo qayb gashay ma waa salaamaya waa salaan في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها الدين تان دافو خير لدن عامها ومهتسي خاصة انت كسو غيب قصر شركونا ادبتايو هبين ملايين انت حمسي امانا قربصن السير السنة وهذا بعد بيلي hablaha soo abaabulay gaaroodina duco iyo wax kaloo nisiiyo garan maayee rabbigay cigiriga adduunka iyo cigiriga aakhira waxa idinka kor qaado waxaan intaa raacinayaa Somaliland waxay ka dhisan tahay debadda nin qoyskiisa caawiyo shakhsiya iyo caam nin caawiya iyo mid makiinad keena waxay ka dhisan tahay debadda hablahaasi halkanuun ma ahaane magaalada Salaxle la yidhaa waxay ka qabteen baanu sideeda ugu ducayninkii salaatuleylkaanu duceeyey hadda midh ma ahaane waxaan idinka wacyeeyaa qallooci magaal heeladan waxaan idinku dardaarayaa qoraal weeye wixii alla wixii lay weydiiyey een xusuusto waa idin sheegi doonaa waxa weheliyaa waxtarkiina in yar baa dhab ku jirta ee intaa ka tuura waa maxay intaasu waa qabyaaladda asalkamana qabyaaladda nin ladan unbaa abaabulaa ama kursi ha ku fadhiyo ama lacag ha helo ama awlaad berigii hore inamo badan baa dhalay ha yidhaaho nin ladan unbaa abaabulaa waxaa la dhisayaa imaka 4 waddo Somaliland magaalada Dila
iyo boorowata waddada u dhexaysa waddo ka baxdo buurta ka dhacdo oo waqooyiga u baxdo oo xawaadaha jumada ku magacyeeyey waddada salaxday waddada balligubadle oo meeshii kolkii dabadda loo baxay ee reerkaasi dabadda u baxay ee dabadda loo tuuray meeshuu ku shiri jiray oo la ikraamado gobol laga dhigay ayaa waddo aan lahaynoo waddo iyadana loo sameeyaan afartaa raad baa la sameeyay afartuba waa idiin baahan yihiin haddaad dabadda tiin ama dibadaha kuwa kale ha la hadashay ama reela dhan ha ahaatee iyada oo xaggiina iyo xagga ilaahay ay ka dhisantay Somaliland iskuullada iyo caawimada iyo dadka ilaalintiisa xaggiina iyo xagga ilaahay bay ka dhisantay waxaa idin weheliyo magaalada Jabuuti oo taarka laga dirto raashinka horreeyey inagoo farmaran baynu soo galay oo kabala oo marala magaaladaas oo baankeeda Ismaaciil Cumar Geelle u fasaxay 10 loo ka soo jeeday Somaliland ayay iyo idinkay ka dhisan shaqadana caaway qabatay waxaa ku dartaan isjecel waxaan idinku dardaarayaa mid noqda qaranka wada lahaada isxurmeeya kala xishooda meesha wax ku dhacaan waa reer hebel ha odhanine wax yar baa idinka kafeynaya haddaa ururisaan oo mid tihiin qurbaha makhaayadaha ha odhanina muxuu reer hebel kursi helay dawladda sidee u dhisantay dhaha dawladda ma inoo dhisantay waayo ninkaasu qoyskuusa unbuu matruufayaa kursiga helay laakiin ninka nabadgelyada taan uga shaqeeya ee dadka isu soo dhaweeya ee wixii dhacay ka samra ee wixii dhacay ninkaasaa waxidiin ah nin xun iyo ninsan haydiin ahaato dawladdu yay noqonin maxaa reer hebel kursi helay markaasuu quraa idinku jira wax ceeb oo kale idinma hayo beri horena waanim maantana waanim oo arkaysaan nin qoladaydiiyahoo imanaya oo shir jooga xagga magaalooyinkaas oo dhan ma joogo madibaan ku ahay madigu ninka carruurtuuna ka dhimato maaha ama aan wad lahayn intay maluugtiisa isgaranayay ninka waayo weyi waa kuwa waan idhaahdo 3 hawo kolku wadaan kartaa ammaanta ay siiseen waxay igu dartaan oo idinku abaalgudayaa mid noqda ilaahayna ku xidhnaada inan iyo inanba nin yar iyo nin weynba cibaadaysta cibaadada waafaqoo tukada qofkaan ilaahay ku xidhnayna waa baadi qofka dariiqa ka lumay weeye ilaahay ku xidhnaada xurmad bini aadamkana kolkaasaa kala helaysaan oo ismaqlaysaan hadduu mid caadaka kale yuu caayo haddaan wanaagga qora waxaanay qaban qaadan kolkaynu diriri jirnay labada beelood ee wanaagga waxa ku dhashaa kolka la qora waxaan qaban qaadataa ee la yidhaha qaraad ama waxay leedahay oo geeli oo dhamoo la qaaday ay ka sabirtaa ayay wanaag u dhashaa anigu ma gardaraado ninkay gardaraystana kama hadho maaha gobonnimada gobonnimadu waa in lagu caayaayoonad wax caayin waa in lagu dhibaayoonad wax dhibin waa in lagu qadiyaayoonad wax qadin gobonnimadu saasay reer ahaan iyo qur ahaan iyo qabiilaba ku jirta istexgeliya
Somaliland ahaan isdhexgeliya sidaasaa idinkuna ku dhismaysaan waddankina ku dhismayaa wada jira abaalkan caawa iyo xurmadan iyo ammaantanna ilaahay ha idinka abaal mariyo u malayn maayo halkaa inaan gaaray ilaahay ha idinka abaal mariyo ilaahay idinka abaal mariyo waxaan u malaynayaa waxaan galabsadan waxaa ku helay ninkay caayaanan caadi ninka labada qolayska daaya yidhaah ama waxaa la yidhaha waa u afti ama waxaa la yidhaha wuu ka qabaa waa u seedihi ama waxaa la yidhaha inantiisay qabaan meelunbaa lagu mariya ninkaa waa loo col ninka colka abaabulose dadku durbaanunbuu u tumaa dhib badan baa iga soo martay isdaayada ayatiinkeedii waa kan caawa waan dhex fadhiyaa waxaan idinku ducaynayaa cisiga allah idin siyaadiy cisiga allah inoo dhammaanteen haynoo siyaadiy cidhiidhiga adduunka iyo cidhiidhiga aakhiraba rabbi haynaga kor qaado itifaaq iyo heshiis allah hayna siiyo madaxda sharaf kale ee noo madaxda inuu madaxweyne la sameeyo lama caado ninka madaxweyneha xaqiraya isaga isxaqiraya waayo amarkeennii oo dhan baynuu dhiibnay waxaa la yidhi xadiis waxa ah xaqiiqo ah haddii aanu caadil yahayna hadalkiisa badda haddaanu caadilahayna ha diidino ha xaqeen madaxda iyo dowladnimada mucaaridka waa dahaba waa la doonaa laakiin waddu leeyahay mucaaridadu wadday leedahay halkaasaa sibir ha la sameeyo batrool ha la doono dadka shaqaha loo doono laakiin cay ma laha in mucaarid iska dhigayo xisbi furtay inuu caayada madaxweynaha iyo wasaarada iyo baarlamanka iyo ma aha dee isaga iscaadaya waa in la istilmaamaa tilmaantaa mucaaridkay ku dhisantaa oo la yidhaah sibirkii mee batroolkii mee shaqadii dhalinyarada meelay iskuulka jaamacad maxaa meel heblo looga dhisi waayo tabtaasaa mucaaridka u socdaaya weli soomaalidu mucaaridkii baanay aada u baran waxaan idinku wacyeeyaa xisbal mucaaridka qolada ku jirtaa yay cay laasimayne tilmaan ha laasimayn tilmaan xisbal maxaafidka qolada ku jirtaan codka ha wanaajiso waxay iyagu leeyihiin yo iska dhigin ka mucaaridka iyo ka muxaafidkaa madaxda kursiga ku fadhidaa waa u simantay iyagana danta dadka allaha garansiiyo danta dalka ilaahay waxaan idin baryayaa xagga ilaahayna cisi ka heshaan xagga ilaahayna dhammaanteen cisi inaga siiyaa sharaf iyo magac intii ku dhimatay in alla inaga yeela ceebteenna adduunka iyo ceebteenna aakhira waa in alla astura allahuma salli calaa maxamed subxaana rabbika waxa ugu cajo badnaa had iyo sheekh saxaaq wixii la dhaqaayo had iyo ceere gaabo iyo had iyo kala baydhka boorame kaba-la-aan siman korkii lagu ba'ahay ee umushii laga tegey ee habartii liidatay indhaalaayda fadhiyay aqalka lagaga tegey ee ninkii qofkii waalaa rag iyo dumarba laga tegey ee odaygii gaboobee ka ciwaayay laga tegey ee intii kolkii la arkana xabad la mariyo waxna aqalka hoostiisii ku bakteenu lafi ugu soo noqonay masiibadaa masiibo ka weyni ma jirto taas way iigu adkayd anoo kabana ka baxay buriyey la iigu soo galay masiibadaas oo
masiibo ka weyn ma ay jirto haddii aynu soo noqonnay oo ilaahayna guuleeyey oo dhib badan la soo maray waxa ii xigay laba reer baa ku jirin berbera labadii reer baa miina mid dhiga iyaday shani ku dhimatay maxaj cabdiya dagaalkii hore ayaa kii yuusuf ee wada tegeynay soo baxadu ku dhintay su-aasheedu waxa weeye adeer waxaan doonaynaa aniga inankan axmed iyo ilmo kaloo dhalinyaro oo badan oo iminka doonaya inaynu duubtaan bireeno filmaanta sidamana filmaanta ee sanadoo sameynana waayo wadankii markaanu togno waxaa naga hor yimaada dad dhaafara naga gelinaya dad aan jajabnayn xitaa dad tiraan cag baa lagu siinayaa badana ma ogolaadaan yacni inayna maqlaan qof marku filim duubayna waxa weye qofka dad tiraad bood weynu booday ina cag ba siinaysahay raggan wuu qaboobay qoladaa weli shabhaddii baa ku jirta baahidii baa ku jirta qaadkii baana weli qumaata uga dhargin u samra u dulqaata waa soo wanaagsanaanayaan wasalaamu calaykum adeer waxa weeye waxaanu haynaa dumar fara badan oo wax bartay oo geli guurtidana geli kara kuwii deegaankana geli kara kuwii baarlamaankana geli kara marka bal kuraasta in wax looga badheeyo ayaan doonaynaa marka imika haddii ayaga wadankii ku noqoto waxaan kaa codsanaynaa inaad tiraa dumarkii way soo socdaan meel u baneeya waa mahadsan adeer waa su-aal wanaagsan haddaa meel walba haddaa ku jirtaan hala kordhiyo maahaane wasaarada waa ku jirtaan wakiiladana waa ku jirtaan guurtidana waa ku jirtaan deegaankuunbaa ka maqantii deegaankiina imika sharaxaadda soo socota qaar badan baa u diyaara ina xaajigayd oo shahado la siiyey oo ku magac dheer oo aabbaheed aan ka dhicin ayaa deegaanka gibiilaya kan hargaysana waxay u dhowyahay inay idinku qaadaan وإلى عيش كويتي نقول waxaanu aragnay isagoo nabad guro laakiin markii aad yareed wixii aad soo gaadhay waxaan soo gaadhnay ugaadho hooygeeda sidaa u dhexdaadaysa maasha allah marodigoo halkaa rabasa jooga oo lagu yaqaano daaqad marodi waxaynu soo gaadhnay dixidoo kolkay baxdo roobka helo cufka tuurto intaa leeg maxaa haddaba ugu wacnaa baabuur ma marin oo waddo ma marin waddan baabuurkii waddadii buu maray hawl iyo waqooyiba makhaayadahan geel walba laga dhigay deegaanka noqotay ma jirin reer waddan ilaahay ha barakeey dumarkaana xurmeeyey halkaa soo furiistee shaawushaa badan qabtay qarashkaa u maleelay dumarkaa ilaah ha u bedelo sama allah ugu bedelo allahuma salli calaa maxamed sidii roor allahayna waafaq isafkarad allahayna siiy gobonnimada allahaynoo adkay hawshana aynu cisiga ku leenay xaggaana cisiga ku leenay gobonnimada allahaynoo adkay subxaana rabbika عقاقايو ومتاضوي